Hay soo dhawaada saaxiibayaal kuna soo dhawaada season kale oo aad u xiiso badan. Ka hor intaan bilaawin muuqaalkan waxaa ka codsanaya muuqaalka laakiin asarto waa canshuurta kaliya aan kugu leeyahay. Sidoo kale ku soo biri janaalka haddii aadan weli ku soo birin oo gambaleelka furo. Waxa saaran wadadii ay ku gaari lahayn 100,000 oo saaxiibo. Intaas haddii aad samaysay aad iyo u mahadsantahay. Haddana aan gudagalno muuqaalkeena. Bilowga muuqaalka waxaana la barayaa atoora filmkeena kaasoo Mooga lagu magacaabay. Xilligaasina waxa uu joogay meel uu interview uu ku gali rabay. Sidoo kale halkaas waxa la joogtay gabadhan oo Reena lagu magacaabo. Labadoodana saaxiibo ay ahaayeen calashaan xiriir jecel ayaa ka dhaxeeyay. Maalinkaas Reena ayada Mooga ay u keenaysaa kaba aad u qurux badan maadaama uu asiga kabaha u watay uu waqti hore uu soo gatay weliba ee dhamaadeen. Anagana waxaan ogaanaynaa Mooga asiga inuu la nool yahay walaashiisa iyo seedigiisa kadib geerida waalidiintiisana ayaga ayaa hooyo iyo aabbo u noqdeen. Sidoo kalena guriga waxaa kula noolaayeen ilmo ee dhashay walaashiisa. dhab ahaantiin ayaga nolosha ay ku nool yihiin waa ay ku faraxsanaayeen aad ayayna ugu qanacsanaayeen. Moogana walaashiisa iyo seedigiis xitaa hal mar ma aysan dareensiinin in ayaga ee dhaleen waxayna ka soo qaadeen ilmaha ee ayaga ee dhaleen oo kale. waxay noqotaa Mooga ugu dambeyntii qolka interviewga ayaa looga wacaya. Reena waxay ku dhaysaa guul ayaa ku rajanaya farxadda ayaana rajanaya inay dib ugu soo laabato. Anagana waxaan ogaanaynaa Mooga interviewgan laga qaaday inuu yahay deeq waxbarasho ee loogu talagalay dadka faqiiriinta. waxay haataa Mooga taleefankiisa waxa haysay Reena intaas wixii ka dambeeyay waa la soo wacaya waxaana loo soo sheegaya Mooga seedigiis inuu geeriyooday isla markaasina Reena ayada inay u sheegtay kama labalabeenayso ugu dambeyntii wax walba ay la wadaagaysaa. intaas wixii ka dambeeyay Mooga oo orday ayaa imaanaya isbitaalka uu ku jiray seedigiis weliba uu ku geeriyooday. anagana waxaan ogaanaynaa asaga inuu xanuunsanin balse wadnaha hal mar laga soo booday maadaama uu asiga uu khamriga uu si daran u isticmaali jiray. sidoo kale Mooga walaashiisa ayadana maadaama ay uur lahayd halkaas ayaa lagu qabanaya oo isla markiiba waxaa la go'aansanaya in qaliin lagu sameeyo. Mooga ayaana saxiixayo balse wax walba halkaas inta la joogo salam filan ay isku bedelayaan kadib markii la ogaaday Mooga walaashiisa inay geeriyootay hasaatee cunuga yar ee dhashay uu nool yahay. dhab ahaantiina dhammaan ilmaheeda waa ay ka wada naxayeen. sidoo kale walaalkeeda Moogo maalinkaasina ayaga halkaas 2 naf ayay ku waayeen laakiin hal naf ayaa ku soo biirtay noloshooda. xilligaas wixii ka dambeeyay Mooga asiga wuxuu ogaanaya mas'uuliyad weyn in dusha ay ka saaran tahay wuxuuna go'aansanayaa ilmaha ee dhashay walaashiisa maalin inaysan ciishoonin asiga noloshooda uu kafaalad qaado weliba nolol wanaagsan ay ku noolaadaan. laakiin dhab ahaantii waxay u muuqatay midaas inay adag tahay maxaa yeelay Mooga asiga hadda ma shaqeeyo welina waxbarasho ayuu ku jiraa. sidoo kale gabadha yar ee noloshooda ku soo birtay taasoo Iima lagu magacaabo ayadu waxay rabtaa in la daryeelo. dhammaanna Mooga asiga wuxuu aaminayaa wax walba inuu sameyn karo ilmahan dartooda. habeenka xigana Reena ayaa guriga ku soo booqanayso asagana dhab ahaantii wejigiisa murugo ayaa ka muuqatay. ayadan waxay kala hadlaysaa howl ay rabeen inay qabtaan. waxaana halkaas ku ogaanaynaa Mooga asiga inuu bartay xirfadda design-ka wuxuuna design gareeyaa guryaha qaab freelancer ayuuna u shaqeeyaa. waxay noqotaa wiilku abtigu u yahay Mooga ayaa u imaanay wuxuuna u sheegayaa gabadha yar ee Iima ayda inay oonayso. intaas wixii ka dambeeyay Reena ayda waxay go'aansanaysaa inay halkan ay ka tagto waxayna ku dhaysaa aniga waa daahay. waxay noqotaa Reena ayda meesha waa ay ka soo tagaysaa Moogana gudaha ayuu hore u sii galayaa. laakiin waxaan ogaanaynaa Reena dhab ahaantii Mooga nolosha uu ku nool yahay ayda inay aad aaga xun tahay waxayna dareemaysay mas'uuliyadda asiga soo kortay inay tahay mas'uuliyad aad u weyn. buugaagtiisii waxbarashadan waa uu ka soo saaraya dhammaan meeshii ay ku jireen. booskoodan wuxuu ku bedelayaa xafaayadda gabadha uu abtigu uu yahay maxaa yeelay hadeertan wuxuu ogaaday asiga waxbarasho kale inaysan u sii dhinneen keliyana uu haddii wix ka dambe uu raadin doono shaqo uu ka shaqeeyo. waxay noqotaa Iima ayuu keenayaa isbitaalkii ay ku dhalatay si caafimaadkeeda loo ogaado. markii uu halkaas uu ka soo tagana wuxuu la kulmayaa nin ay wada shaqeyn ee ka dhaxayso asagana waxaa lagu haystay ayaantan shaqadiis inaysan wanaagsaneen laakiin asiga wuxuu ka codsanayaa xoogaa jaanis in la siiyo maxaa yeelay gabadhan ayaa daryeel iiga baahan ayuu ku dhahayaa. waxay ahaataba habeenka ayuu gurigiisa dib ugu soo laabanaya. intaas wixii ka dambeeyay ilmaha uu abtigu u yahay ayuu bilaabaya inuu farxad u muujiyo weli waqti uu la qaato. Mooga mar kale asiga wuxuu la kulmayaa ninkii wada shaqeynta ee ka wada dhaxaysay asagana kaliya ninka uma shaqeeyo laakiin kambanigan ayuu ka shaqeeyaa designer ayuuna ka yahay laakiin wuxuu ka shaqeeyaa asigoo gurigiisa joogo wix loo diro oo kaliya ayuu soo sameeyaa. waxay noqotaa Mooga waxaa loo sheegayaa halkan inuusan kasii shaqeyn karin sababtoo ah waqtiyada lasoo dhafay asiga ma uusan ahayn qof shaqadiisa si wacan u gutaa. waxay noqotaa arrinkaas waa laga diidaya. intaas wixii ka dambeeyay asiga ruqsadiisa ayaa la soo siinaya. markii uu xaafadda imaado wuxuu bilaabayaa Reena inuu la sheekaysto. wuxuu ku dhahayaa aniga dhab ahaantii nolosheedii waxay u muuqataa sidii hore inay iska bedeshay. ilmahan ay walaasheedii dhashay ayaana waajib iga saaran ayagana waxay iga rabaan inaan xanaaneeyo siiba gabadha yar ee lagu magacaabo Iima. sidaas awgeed wuxuu ku dhahayaa aniga howlahan iyo shaqooyinka waxaa rabaa inaan faraha iskaga qaado nolosheedana si kale aan ku maareeyo maadaama asiga iyo Reena ay ku balansanaayeen inay project ee dhisaan. Reena ayada waxay rabtay wax walba inay ka dhaadhiciso weliba ay ku qanciso laakiin wuxuu la wadaagayaa asiga mida inuusan awoodin weliba uu sameyn karin. intaas kadib Iima ayaa soo kacaysa Moogana dhankeeda ayuu aadayaa. xilligaasina Reena ayada lifeka ayay ku jirtay waxay arkaysaa Mooga oo lugta caano kuleel aaga daadanayo. indhaheedan ilin ayaa soo buux dhaafinayaan dhab ahaantiina ayada waxay dareemaysaa Mooga asiga dhibaato inuu ku sugan yahay calashaan xaaladan uu ku jiro keligiis inuusan awoodin inuu hore u sii socdo. maalinkaas oo dhanna Mooga asiga waa uu fikirayay maadaama asiga keligiis ilmaha mas'uuliyadooda uu qaaday weliba laga soo ceereeyay shaqadii dakhliga yar uu ka helayay. sidoo kalena waxaan ogaanaynaa Mooga asiga Reena inuu ka dalbaday xiriirkoodii jecel inuu halkan uu kusoo gabagabeeyo maxaa yeelay wuxuu la wadaagay asiga xaalad
xaaladan uu ku jiro inuusan xiriir uu ku sii wadi karin. xilliyada qaarna waxaa dhici jirta Moga asig markii uu banaanka uu ka yimaado ilmaha iskuulkooda inuu horey u soo maro. sidoo kale xilliyada qaar waxaa dhici jirta ayaga abtigooda Moga inay caawiyaan ilmaha midka ugu weyn kan ayuu ahaa asagana Woga ayaa lagu magacaabay. dhab ahaantiin ayaga inkastoo waalidiintooda ay geeriyoodeen haddana farxad malaabaal ay raadinayeen taasoo ay ka raadinayeen dhanka abtigooda maxaa yeelay wuxuu ahaa qofka keliya ee haystaan. maalinna Google Mapska ayagoo ku jiraan magaalada ay joogaan ayay sirjingareynayaan kadibna markii ay helaan xaafadooda ayay ka soo raadinayaan. si lama filaana waxay ku arkayaan hooyadooda iyo aabahooda oo banaanka joogaan weliba kor laga sawiray kaasoona ayaga dhammaan dareenkooda bedelayo. maalinkaas Moga waxa uu imaanayo macalinkii asaga soo baray sida biyaanada loo garaaco asagana lacag ayuu siinaya wuxuuna ku dhahaya aniga keliya waxaa ka rabaa gabadheeda inaa biyaanaha ii barto weliba gurigaaga ay kula noolaato. arrinkaasina dhab ahaantii Moga aad ayuu ugu adkaay maxaa yeelay asaga hadda ayuu la daaladhacayay ilmaha uu abtigu u yahay noloshooda wuxuuna aaminsanay nolol kale inuusan mas-uuliyadeeda uu qaadi karin laakiin ugu dambeyntii codsigiis waa uu ka aqbalaya. macalinkiisa gabadhiisana Ice ayaa lagu magacaabay. habeenkiina asaga iyo Woga kadib markii cashada ay soo kariyaan Ice oo garaacisa biyaana ayay arkayaan asagana wuxuu ogaanayaa inay xoogaa ay u bilaaban yihiin. wuxuu u sheegayaa keliya inay wax yar u dhiman yihiin weli waqtiyada soo aadan ee baran doonto. ayaga dhammaantoodana waa ay u wada sacbinayaan hamigeeda ayayna ku dhiirigelinayaan. maalinka xigo guriga Woga ayaa looga soo tagayaa. anagana waxaan ogaanaynaa xalay tolo Woga asaga go'aan qaraaran inuu qaatay weliba abtigiisa uu u sheegaya hadda iyo wixii ka dambeeya iskuulka inuu ka bixi doono. wuxuuna ku dhahayaa aniga waxaa rabaa inaan ku caawiyo weliba aan kula shaqeeyo. arrinkaasina waxaa dhicisa ugu dambeyntii Moga asaga inuu ogolaado. maalinkaasina Moga wuxuu imaanayaa kambani uu shaqo uu ka rabay halkaasoo interview uu ku geli rabay. ugu dambeyntiina interviewgiisa ayaa u bilaabanayo laakiin anaga waxaan ogaanaynaa Rina ayada kambanigan inay ka shaqeyso. si lama filan ayayna ku arkaysaa Moga waxayna ogaanaysaa booska banaan qofka loo raadinayo inuu asaga uu ka mid yahay dadkii soo dalbadeen. isla markiiba Rina ayada go'aan ayay qaadanaysaa oo maamulka guud ee meesha ayay u tagaysaa waxayna u sheegaysaa booskii in qof loo helay. asagana xilligaas qof ayaa la joogay maadaama uu arrinkan sideeta uusan ooga hadli karin haye ayuu ku dhahayaa. intaas wixii ka dambeeyana Rina ayada waxay u imaanaysaa Moga ninkii interviewga ka qaadayay waxayna u sheegaysaa ninka maamulaha inuu aqbalay waxayna ku dhahaysaa shaqada asaga ayaa booska lagu buuxinayaa. waxay ahaato Moga asaga aad ayuu ugu farxayaa halka markii uu Rina uu ku arkay. intaas kadib waa ay soo kaxeynaysaa ayadan waxay rabtay kambaniga inay kala barto gudihiisa. sidoo kale waxay weydiinaysaa asaga hadeertaan inuu bartay sida loo xanaaneeyo caruurta. asagana ha ayuu ku dhahayaa xoogaa sidii hore waa dhammaan sidoo kalena waa ay weynaatay Ima ilmaha uu abtigu yahayna labadii sano ee la soo dhaafay inta uu ku dhex jiray dhibaatooyinka uu kala kulmay waxaa ka mid ahay habeenada ka mid ah gabadha uu abtigu yahay taasoo Nina lagu magacaabay inuu arkay ayadoo xilli saqdheexa banaanka ka imaaday. kadib markii uu arrintaas wax uu ka weydiin waxay ku dhahaysaa adiga waxaa ogaataa inaadan aabaheyga ahayn taasoo dhab ahaantii asiga qalbigiisa zaid u dhaawacday laakiin wuxuu ku dhahayaa aniga dhab ahaantii midaas waxba kama aanan soo qaadin ayadana waa gabar yar wiilin aqligeeda ma uusan dhammaystirmin. sidoo kalena waa ay iraaligelisay maalinka xiga. sidoo kale waxa uu u sheegayaa macalinkiisii soo baray biyaanada gabar uu dhalay inay guriga ay kula nooshahay. arrinkaas ina aqbalo way igu adkeed ayuu ku dhahayaa laakiin asaga ayaa iga dalbaday weliba iga codsaday anigana maadaama uu yahay macalinkeygii biyaanada isoo baray waa ka diidi waayey. intaas wixii ka dambeeyay Moga gurigiisa ayuu dib ugu soo laabanayaa laakiin waxaa loo soo sheegaya wiilku abtigu u yahay kaasoo aana lagu magacaabay inuu isbitaal uu jiifo. kadib markii uu imaadana dhammaan xanuunadiisa ayaa loo sheegayaa. Mogana isaga markii uu rabay lacagta inuu ka bixiyo wiilku abtigu u yahay waxaa loo sheegayaa kaar bangigiisa inuusan shaqaynaynin. 2 sano ka hor ayaa lacagaha caymiska laga joojiyay ayaana lagu dhahayaa dowladda ayaana xiratay. sidoo kale halkaas waxaa joogay nin uu rabay inuu laabtoob uu ka iibsado maadaama Moga uu hadeertan uu shaqo u bilaabayna asaga laabtoob cusub oo uu u baahnay laakiin lacagaha yar uu haystay weliba uu rabay inuu laabtoob uu ku iibsado. wiilkiisa aanu ayuu isbitaalka uu aaga soo saaraya. habeenkina markii uu guriga uu dib ugu soo laabto asagoo project abuuraya laabtoobka oo dhan ayaa ka damayo laakiin si lama filan meesha Rina ayaa ku imaanayso ayadana waxay waday laabtoob cusub weliba MacBook. intaas wixii ka dambeeyay aana ay xaaladiisa weydiinaysa asagana wuxuu ku dhahayaa aniga xaaladeedu waxaa ka daran sida uu abtigay uu u farxay taasina adiga ayaa ka dambeysay ayuu ku dhahayaa aad ayaa u mahadsan tahay maxaa yeelay asaga lacagihii uu rabay inuu laabtoobka uu ku soo iibsado aniga iyo isbitaalka iga soo saaray. habeenkaasina Moga asaga sida uu u shaqeynay xilli dambe ayaa lagu gaarayaa. sidoo kale waxaan ogaanaynaa Rina ayada habeenkaas inay halkaas ay jiifatay. maalinka xigana Moga magaalada iyo waxaa ka baahanaya Rina ayuuna soo raacaya. waxay ahaataba guriga markii uu dib ugu soo laabto ilmihii uu abtigu ahaa ayuu la wadaagaya asaga shaqo inuu helay. arrinkaasina aad ay ugu farxayaan dhammaantooda aana ayaana ku dhahaya anaga waa inaan hal mar baxnaa weliba aan soo dabaaldegnaa. sidoo kale halkaas waxaa ku baranaynaa Moga adeerkiisa kaasoo eega lagu magacaabay asagana wiilkiisa ayuu ugu hambalyanaya shaqada uu soo helay wuxuuna weydiinaya mushaaraadka uu ku shaqeynayo laakiin wuxuu ku dhahayaa haddii aadan ku faraxsaneyn waa iska daa kartaa. intaas wixii ka dambeeyay Moga aan ayaa cunto u keenayo wuxuuna ku dhahayaa abti quruxow adiga ayaa kuugu talagalay. waxay noqotaa Rina iyo Moga ayaga magaalada ay soo aadayeen si ay waqti u soo qaataan. dhab ahaantii Rina ayada Moga mar walba garabkiisa ay taagnay waxayna ku dhahaysaa maadaama adiga shaqo heshay hal mid ayaa kaa codsanaya midaasina wax kale ma ahan ilmaha waa inaa hal mar dalxiisa u wadaa maxaa yeelay ayaga ka
kahor waalidiintooda markii ay noolaayeen ayaa ugu dambeysay dalxiis in loo wado dhab ahaantiina way u baahan yihiin inay soo hawaabadashtaan adigana way ku mahadcelinayaan midaasina waxaa dhicisa mooga isaga inuu ka aqbalo midaas ayaana dhicisa ugu dambeyntiin waxay imaanayaan magaalo kale weliba ayagoo dalxiis u imaadeen dhammaantoodana waa ay wada dhammaayeen sidoo kale riina ayada xitaa waa ay soo raacday jawigan waxa uu ahaa mid aad u qurux badan waxaan ogaanaynaa jawigan inuu lamaano uu ku wanaagsan yahay sidoo kale xitaa waxaan ogaanaynaa mooga adeerkiisa iyo eedadiisina ayaga ee la socdaan aisna halkaas waxaa ku arkaysa gabar ay hal magaalo ay kasoo wada jeedeen mooga ayayna u sheegaysaa aabaheeda iyo hooyadeeda inay is yaqaanaan aabaheedana miis yar ayaa u furan ayay ku dhahaysaa xaaskiisa ayuu la nool yahay noloshoodan waa ay u wanaagsan tahay habeenkaasi dhammaan ilmaha marka ay wada hurdaan mooga iyo riina sidoo kale adeerkiisa iyo xaaskiisa waxay bilaabayaan inay sheekaystaan mooga habeenkaas adeerkiisa ayaa ku dhahaya adiga shaqadan waxaa loo baahan yahay inay xasilooni ah ku dareento weli waxyaabaha aaniyada gashanaysa aan isku murjinaysa inay iska dhaafta ayaa loo baahan yahay ilmahan hooyadooda iyo aabahooda waa ay geeriyoodeen ayuu ku dhahaya ayagana hadeertan waa dad weynaaday noloshooda wixii dhib ku ah iyo wixii kalena waa ay kala garanayaan adigana qof weyn ayaa tahay nolol ayaa u baahan tahay sidoo kale ilmo inaad dhasho ayaa u baahan tahay marka noloshaada ka fikir ayuu ku dhahaya waa inaad shaqaysataa weliba lacago fara badan aa meel dhigataa ayagana waxba kama halaabayo oo anaga dhan ayaa garbahooda taagan xilligaasina hadallada uu ku hadlayo adeerkooda ilmaha oo dhan waa ay maqlayeen ayagana waa ay soo jeedeen dhab ahaantiina fikirkaas keliya waxay wateen adeerkiisa iyo naagta uu qabo waxayna aaga dhigayeen sida ilmaha inay dhib ee ku hayaan oo kale laakiin waxaan dareemaynaa mooga iyo riina ayaga arrinka inaysan ku qanacsaneen sidoo kale ais ayaa arkaynaa aydan waa ay ilmeynaysay maxaa yeelay dhagaheeda waxaa soo gaareen hadallo uu ku hadlayo mooga adeerkiisa hadalladaas oo ahaa ilmahan aabahooda waa ay geeriyoodeen midaan hooyadeeda iyo aabaheeda waa ay u nool yihiin qofka welwelka iyo walbahaarka lagu abuurayana waa adiga kaligaaga ee noloshaada wax u qabsa sidaana waa inaa wax ka bedeshaa weliba aa shaqaysataa maalinka xigan magaaladooda ayay soo aadayaan ilmahan dhammaantooda waa ay xanaaqsanayeen laakiin mooga iyo adeerkiisa ayaga ma aysan ogeyn ilmaha wax walba inay maqlayeen waxay noqdaa ayaga maalinkaas markay guriga ee imaadaan isla maalinkaas aysaayada halkaas waa ay kasoo tagaysaa guriga hooyadeeda iyo aabaheeda ayayna dib ugu soo laabanaysaa dhab ahaantiina mooga isaga murugo fara badan ayaa haysay maxaa yeelay wuxuu go'aansaday magaalada inuu ka tago weliba uu soo shaqaysto ilmahan uu aaga tago adeerkiisa iyo eedadiisa balse lacago ku filan uu usoo diro midaas ayaana dhicisa ugu dambeyntiina magaaladii uu rabay ayuu imaanayaa sidoo kale halkaas riina ayaa la joogtay isla maalkii uu imaaday magaaladaasina adeerkiisa ayaa soo wacaya wuxuu u sheegayaa in lacaga loo baahan yahay guriga saqafkiisa kore ayaa dhammaaday ayuu ku dhahaya maadaama aanan la bedelin dhowr sano marka waxaa rabaa inaa bedelo adigana lacag aa soo dirto moogana hadalkiisa ayuu qaadanaya lacagtii ayuuna u diraya laakiin riina waxay dareemaysaa inay waxay qaldan yihiin arrinkaas soo wicitaanka adeerkiisa weliba lacagaha uu weydiisanayana sidaasi kuma ekaanayso oo isbuuca keliya ee lasoo dhaafay in ka badan 3 jeer ayuu lacaga ka qaadaya isagana dhab ahaantii waa uu la yaabanay waxa soo kordhay hadeertaan sidoo kale mooga waxaa la tusayaa meelaha loo baahan yahay in la dhiso nashqad ka sameey ayaana lagu dhahayaa moogan isaga mar walba uu adeerkiisa uu lacag u diro lambarka aano ayuu wici jiray iyo qaar ka mid ah ilmaha oo xaafada joogaan ayaga laakiin lambarkooda lagama qabanaynin calaashan waa uu dansanay taasina dhab ahaantii aad ayuu ula yaabanay isagana waxa uu isweydiinayay waxa qaldan keliyan ilmaha uu abtigu uu yahay isaga hal sawir ayuu ka haystay sawirkooda ayuuna iska daadaaban jiray maalinka xigan isagoo fikiraya riina ayaa ku dhahaysa adeerkaaga maxaa ka qaldan waxa ku balanteen bishii inaad lacag u dirto adigana bishii lacagtada waa u dirtaa laakiin soo wicitaankii zaid waaye ayay ku dhahaysa adigan lacagaha uu ka qaadaya dhab ahaantii looma dulqaadan karo halkaasina sidoo kale zaam ayaa joogay isagana wuxuu weydiinayaa mooga ilmaha uu kasoo tagay inta ay yihiin wuxuu ku dhahayaa dhammaanteen marka ay isku tagno 7 qofood ayaa nahay laakiin inta adiga guriga ku joogto ayuu ku dhahayaa in ka badan ayaa aniga gurigeyga joogto lacaga ee adiga laga qaadaya lacaga aad uga yar ayaa anigana dhiibaa weliba laga qaadaa marka waxaa laga yaabaa ayuu ku dhahayaa inay wax ay qaldan yihiin marka guriga waa inaad dib ugu laabataa calaashaan xaaladda ka taagan guriga waa inaa ogaataa intaas wixii ka dambeeyna isaga waa uu ka tagayaa riina iyo mooga ayaan isku soo harayaan waxay bilaabayaan inay halkaas ay ku sheekaystaan weli waqti qurux badan ay ku qaataan maalinka xigan dhammaan shaqaalaha waxay la kulmayaan maamulka guud ee kambaniga maalinkaasina waxay isla fiirinayeen disaynada uu soo diyaariyey mooga intaas kadibna mooga ayaa kacay isagana wuxuu bilaabaya disaynadiisa inuu sharaxo qolashana waxay ahaayeen kuwa zaid u weyn weliba maqaaxidooyinka waa ay ka darnaayeen maamulkan wuxuu dhahayaa qolka family oo dhan miyaa jiifanaya mise waa hal qof ama 2 qof mooga waxa uu iska soo jaraya waxa laga yaabaa ayaga inay ilmo ee watan sidaas awgeed ayaa u weyneeyey laakiin waxaa lagu dhahayaa midaasi ma ahan wax macquul galayo maamulkan dhab ahaantii isaga hadalkiisa oo dhanba kuma soconin xitaana kama helayo disaynada uu soo diyaariyey moogana wuxuu isku dayaya asiga qaab walba inuu u qanciyo laakiin waxaa dhicisa milkiila isaga inuu ku adkaysto go'aankiisa kaasoo ahaa inuusan ka helin nashqadaani sidoo kale riina ayaa halkaasi joogta aadan waa ay la dareemaysay waxa uu dareemayo moogo maxaa yeelay shaqadan aan adiga soo qabatay haddii lagu dhaho kama aanan helin dhibkeeda ayay leedahay intaas wixii ka dambeeya banaanka aad ayaa lagu dhahayaa kooxda kalena isaga ayay ka wada hadlayaan wax walba wada hadalkaas kasoo kordhayna mooga maamulaha ayaa la wadaagayo wuxuuna ku dhahayaa dhab ahaantii aniga markii shaqada aan ku cusbaa sidaada oo kale ayaa ahay laakiin ugu dambeyntii waxaa
noqda ayuu ku dhahaya qof perfect ah anigana maraba sida aniga soo ahay oo kale qof ah inuu halkan uu igala sii shaqeeyo marka adiga qaladka maanta samaysay haddii aan marka la samayso adiga ayaa natiijadeeda arki doona ayuu ku dhahaya shaqada ayaana ka ceerin doona mooga isaga murugo ayuu dareemaya milkiilahana waa uu raali gelinaya laakiin isagoo la hadlaya ayuu agtiisa maraya intaas wixii ka dambeeyay Reena ayaa u imaanaysa wuxuuna ku dhahaya anigu waxa uu xisay ilmaha abtiga u ahay waxayna ilata ayuu ku dhahaya dhab ahaantii in qalad sameeyay aanan loo baahnay ayaga inaan ka soo fogaado isla maalintaas shaqada waa uu ka soo tagaya guriga Ice ayuu imaanaya isaga maadaama uu joogay magaalada Ice ee degan tahay halkaasna waxa uu ku ogaanaya kadib Ice markii ay ka soo tagtay gurigiisa ayada inay bilowday inay cabitaanaadka ay iibiso maxaa yeelay waxay aamintay halka ay joogto waxa ay jeceshahay inaysan ku sameyn karin meesha ay ku sameyn lahaydna weliba ay ka soo tagtay Moko waxa uu ku dhahaya ma laga yaabaa adiga inaad dib noogu soo laabato laakiin ma aqaan ayay ku dhahaysaa hase ahaatee waa iska jeclahay inaad dib idinkugu soo laabto dhab ahaantiina Moga isaga waxa uu ogaanaya waxa uu sameeyay inay qalad ay ahaayeen calaashaan adeerkiisa iyo eedadiisa hadalla aanan loo baahnay inay ku shubeen taasoo keentay gabadhan biyaanadii ee jecleed weliba halka ay ku baranaysay inay ka soo tagto asagana uu ka soo tagay ilmuhu abtigu uu ahay maalinkaas ayadan waa ay iska ilmeynaysaa ayadoo weliba dhoola cadeen ku qarinaysa ilmadeeda intaas wixii ka dambeeyay miiska ayuu gacanta saaraya wuxuuna bilaabayaa sida biyaanadii oo kale inuu u garaaco ayadana sida asaga uu sameynayo ay sameynaysaa waxaana ogaanaynaa Ice maalinka ee gurigiisa ay ka soo tagaysay dhab ahaantii ayada zaid inay u ilmeynaysay mana aysan rabin inay halkaas ay ka tagto laakiin xaaladda ayaa sidaasi sababtay waxay noqotaa ugu dambeyntii Moga waxa uu go'aansanayaa asaga ilmihiisa inuu dib ugu soo laabto Reena ayaa gaarigeeda soo siinaysa waxayna ku dhahaysaa anigana waa ka daba imaan doonaa adigu waa inaad magaalada dib ugu laabataa asagoo murugaysan ayuuna wadada ku soo dhacaya weliba aad uga xun wixii uu ka soo maqlay Ice waxa soo ahaa aniga markii gurigaaga imaanay raja ayaa igu jirtay waxaana rabay biyaano qof aad ugu caan baxday inaan noqdo laakiin habeenkaasi dhammaanteen markii aawada maqalnay adeerkaaga hadallada uu kugula hadlayo waxaan ogaanay noloshaada inaan dhib ku nahay sidaas awgeed waxaan go'aansanayay ku dhahaysa adiga xuriyad inaan ku siino ugu dambeyntii Moga guriga ayuu imaanaya adeerkiisana waa uu ka weyneeyaa halkaasi eedadiis ayaa u sheegayso adeerkiis inuu magaalo kale uu shaqo u aaday dhab ahaantiina asiga zaid ayuu u xanaaqsanay kaliyana guriga waxaa joogtay Ima wuxuu ogaanaya lacagihii dhammaan uu asiga uu soo diray dhab ahaantii adeerkiis inuu aruursanay ugu dambeyntiina uu ku baxay sidoo kale waxa uu ogaanaya labada wiil uu abtigu u ahaa iyo gabadhaba inay shaqo ay bilaabeen marka ugu horeysayna aanu halka uu ka shaqeyna ayuu imaanaya wuxuuna ku dhahayaa aniga isma lahayn asigoo heerkan jooga ayuu shaqo bilaabi doonaa laakiin maxaa kugu qasbay inaad shaqayso ayuu ku dhahaya jawaabaya kadib aniga markii awaay wax aa cuno weliba aan leegu dhahay wax walba cunays waa inaa adiga soo shaqaysataa waxaa bilaabay inaa iska shaqaysto taasina waa sababta ugu weyn inaan shaqeeyo ayuu ku dhahaya anigana sidaas ayaa u shaqaynaya Moga asiga hadallada wiilku uu abtigu yahay aad ayuu aaganiyo jabaya sidoo kale aana asiga xitaa wejigiisa murugo ayaa ka muuqatay indhahani waxay ku dhawaayeen ilmi inay soo fasaxaan ugu dambeyntii abtigiisa ayuu habsiinaya isagoo faraxsan wuxuuna aaminayaa hadeertan abtigiisa inuu dib ugu soo laabtay weliba dhibaato kale aysan sii jiri doonin intaas kadib Moga waxa uu imaanayaa halkii uu ka shaqaynayay Wogana aad ayuu ugu farxaya markii uu abtigiisa u arko ayagana saddexdooda waa ay soo raacayaan waxayna imaanayaan maqaaxi ay ka shaqaynaysay Nina isla markii Nina ay ayaga ay aragtan waxay ku dhahaysaa idinka maxaa u baahan tihiin dalabkiina waa inaa sheegataan maxaa yeelay ayada waxay diidaysay shaqadeeda inay ka khasaan weliba halkan laga buriyo abtigeeda Moga ayaana ku dhahayo shaqadan kasoo tag ee anigana keen iraac ayadan waxay ku dhahaysaa inaa shaqeeyo adiga ayaa igu qasbay hadeertaan markii ay shaqadeeda helay weliba mushaaraad qaadanay ma waxa ay leedahay shaqadan kasoo tag oo aniga iraac intaas wixii ka dambeeyay meesha oo dhan waa ay ka soo ordaysaa ayagana waa ay soo raacayaan ugu dambeyntiina meel ka baxsan meeshii ay joogeen ay imaanayaan Moga gabadhiisa ayuu ku dhahaya aniga waa qaldoomay waana aaminsanahay inaan qalad sameeyay laakiin inaa iska cafisa ayaa rabaa mar kalena ma dhici doono qaladkaasi ugu dambeyntiina waxaa dhicisa dhammaantooda inay wada cafiyaan abtigooda aad ayna ugu farxayaan noloshooda guriga ayuu dib ugu soo celinaya waxuuna ku dhahayaa aniga waxaa rabaa shaqada inaa iska joojisaan sidoo kalena meesha Reena ayaa joogtay ayadan waxay ku dhahaysaa aniga ma qabo fikirkan ilmaha inay shaqada ay joojiyaan haddiiba ay shaqaysanayaan faraha iskaga qaad ayay ku dhahaysaa ha iska shaqaystaan laakiin Moga wuxuu ku dhahayaa aniga noloshiina waa ku filanahay wax walba u baahatiina waa idin awoodaan marka waxaa idinkaga baahanahay shaqada inaa iska dhaaftaan welibana aniga ila noolaataan ayagana waxaaba dhicaysa ugu dambeyntii midaas inay aqbalaan intaas wixii ka dambeeyana Reena ayaa soo boodis waxayna ku dhahaysaa aniga maxaa ku diidan tahay inaa agtaada ku noolaado sida ilmaha abtiga u tahay oo kale anigana waa ku jecla ayay ku dhahaysaa waxa rabaa inaa i guursato halkaasina ilmaha uu abtigu yahay ayaa joogeen isagana waxa uu ku qasbanaanayaa inuu dhaho waa ku aqbalay midaasina aad ay ugu farxayaan sidoo kale waxay ku sii farxayaan ayaga ugu dambeyntii inay dib ay ugu soo laabteen ugu dambeyntiina Moga asiga shaqo ayuu helayaa shaqadaasoo maareynaysa nolosha familkiisa sidoo kale waxaa guriga dib loogu soo celinayaa Ice ayagana aad ay ugu farxayaan markii ay arkaan intaas wixii ka dambeeyay eedadiisa Moga cafis ay weydiisanaysaa maxaa yeelay ayadu waxay aaminsanayd inay qalad ka gashay ayagana famil isku duwan ayay noqonayaan weliba ku faraxsan noloshooda
muuqaalka. sidoo kalena familka waxaa ka mid ahayd Reina. muuqaalkanina waxa uu inoo sharaxayaa familka ayaga si walba ee faqiiriin ay u yihiin kaliya inay u baahan yihiin inay isku duubnaadaan, wax walbana farxadda ay ka weyn tahay. marna haddii ay farxad ee jirto lacagi iyo waxyaabaha la midka ah waa laga maarmayaa. muuqaalkeena maantana halkaas ayuu ku dhammaanaya. waxaa rajaynaya muuqaalkan ina ku raaxaysatay. like sar muuqaalka siina sheer garay, sidoo kale kusoo biri janaalka. inta aan kaga kulmeen ana muuqaalkan muuqaalka xiga. nabad.